waxaan kaliya doonayay inaan arko calaamada dhalashada ee ku taal dhabarka dumaashiday, laakiin si lama filaan ah ayay wejigeeda u badashay. waxay ii sheegtay inaan sugo ilaa aan ka weynaado oo aan saaxiibad yeesho. anigoo argagaxsan ayaan ka tegey, maxaa yeelay waxaan maqlay in calaamada dhalashada ay tahay habaar, qofkii arkaana uu dhimanayo. nin la yidhaahdo Jack oo tuulada deganaa ma uusan rumaysnayn caadooyinka xunxun. wuxuu ku adkaystay inuu u yimaado dumaashiday si uu u xaqiijiyo. anigoo degdegaya ayaan isku dayay inaan joojiyo, laakiin taladaydii ma uusan dhegaysan. wuxuu dumaashiday u raacay guriga gudihiisa. 10 daqiiqo kadib Jack ayaa isagoo qaylinaya soo cararay, afkana xumbo ayaa ka timid, wuuna suuxay oo dhulka ku dhacay. dadkii tuulada ayaa yimid si ay meydkiisa u qaadaan. qof walba wuu ka tiiraanyooday, laakiin dumaashiday waxay ula dhaqantay sidii wax iska caadi ah. wax yar kadib Jack walaalkiisii ka weynaa ayaa albaabka yimid. wuxuu dalbaday in dumaashiday ay siiso sharaxaad, laakiin waxay ku jawaabtay in gacan ku dhigluhu yahay calaamada dhalashada. midkeenna ma rumaysan karin. Jack walaalkiisii ka weynaa wuxuu u arkay arrin lagu qoslo. sidee calaamad dhalasho qof u dili kartaa? wuxuu dalbaday inuu arko. waxaan isku dayay inaan joojiyo, laakiin isagu horay ayuu miirkiisii u lumiyey. wuxuu dumaashiday u raacay guriga gudihiisa. markii uu arkay calaamadii dhalashada wuxuu u soo cararay sidii qof waalan, isagoo ku qaylinaya inuusan ahayn inuu arko calaamadaas. intaas kadib dhulka ayuu ku dhacay. labadii walaalo waxay u dhinteen si aan la fahmi karin. dumaashiday waxay si buuxda u noqotay astaan habaar. waxaan ku dhaartay inaan soo bandhigo runta. 10 sano ayaa ka soo wareegtay, waan weynaaday, waxaana soo kaxeeyey saaxiibtay sidii ballanku ahaa. laakiin dumaashiday ma aysan soo hadal qaadin calaamadii dhalashada. taa beddelkeeda waxay lacag siisay saaxiibtay iyadoo isku dayaysa inay beddesho mawduuca. si kastaba ha ahaatee, waxaan ku adkaystay inaan arko calaamada dhalashada. dumaashiday waxay ogolaatay inay i tusto markay habeen noqoto. intaas kadib waxay aaday inay soo qubaysato. waxaan ka baqay inay i been sheegto, sidaa darteed waxaan ka codsaday saaxiibtay inay iga caawiso inaan arko sida ay calaamadu u egtahay. waxaan u malaynayay inay si fudud ku dhici doonto, laakiin falcelinteedii markay soo baxday waxay la mid ahayd tii Jack iyo kuwii kale. si kasta oo aan u weydiiyey, way diiday inay ii sheegto, dabadeedna way iska tagtay. waxaan damacsanaa inaan weydiiyo dumaashiday, laakiin ilbiriqsigii xigay waxaan maqlay qaylada saaxiibtay. markii aan u orday, waxay horay u dhimatay. runta waa inay la jirtaa dumaashiday. waxaan ku qasbay inay i tusto calaamada dhalashada, laakiin waxay ku dhammaatay shalay.